hagaag dhegeystayaal imikana waxaa ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad barnaamijyadii taariikhda Soomaalida aanu kaga warramaynay. Dawladdii Soomaalidu waxay haddaba isku dayday inay la hadasho hogaamiyaashii reer Kenya, waxaana magaalada Muqdisho ay ku marti qaatay Jomo Kenyatta oo ahaa xisbiga KANU iyo Ronald Ngalo isaguna ka tirsan xisbiga la yiraahdo KADU dabaaldegii gobonimada Soomaalida bishii July sanadkii 1962 labadooduba waxay istaageen arrinta NFD ay tahay mid daaqil ah dalka Kenya markii la isku afgaran waayay rajada quraha ee la qabay waxa ay noqotay in lagu xalili karo arrintaasi hiyigii markaasi socday oo ahaa in la sameeyo federation ay wadaagaan wadamada Afrikada bari oo Ethiopia iyo Soomaaliyaba ay ka mid noqdaan riyadaasi oo markii dambe iyada la fahanteedu aan meel marin bishii Maarch sanadkii 1963 markii wasiirkii mustacmaraadka ee boqortooyada Britain uu ku dhawaaqay mowqifkii xukuumaddiisa oo ahaa NFD inay hoos imanayso dastuurka goboleed ee Kenya waxaa taasi ka dhashay in xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goostaan jamhuuriyaddii Soomaalida iyo Britain ama boqortooyada Ingiriiska waxaa markaasi Britishku ay siinayeen Soomaaliya gargaar dhammaa 1 milyan iyo badh oo giniga dalkan Britain boqortooyada Ingiriiskuna waa xiriirkaasi diblomaasiga go'ay ku weediyayna laliyaashii ku yaalay magaalada Berbera ee BBC-du ay lahayd iyo ogolaanshihii loo ogolaa in dayuuradaheedu ay dulmaraan hawada Soomaaliya mar kale ayaynu ku soo laaban doonaa goboladii Soomaaliya ay raadinaysay arrimahooda gaar ahaan sida loo go'doomiyay Soomaaliya marka ay timaado qaaradda Afrika ee aan imika dib ugu laabanno dalka gudihiisa dabcan waxa aan shaki ku jirin in dhageystayaal waxa imika aad maqashaan inay u badan yihiin Soomaali ishaysa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ra'iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii Soomaaliya muddo 3 sannadood ka horna ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ayaanu weydiinay balberigaasi sida dawladda iyo mucaaridku ay u macaamili jireen mucaaridyo badan baa yaa xukuumadii ka soo horjeeday oo sida runta mucaaridiyadaas badidooda xaqiiqadu siday tahay anoo hadda aan rabin inaan ku tacadiyo waxay ahaayeen mucaaridyo badidoodu ay ku xiran yihiin dawlado ajaanib ah oo iyagu ideolojiya ahaan uga soo horjeeday nidaamka Soomaaliya ka dhisna waqtigaas marka laakiin xukuumadda Soomaalidu waxay ku tala gashay in ay xoojiso nidaamkaas ay dooratay oo dimuqraadiga ah oo qof walba xaq leeyahay wixii ra'yigiisa inuu sheego oo qofkii dambi cad oo sida sharciga shuruudda u qoran aan gelinin aan lagu ciqaabi karin wixii uu sameeyo ama wixii uu sheego marka xukuumaddu aad iyo aad bay u taxgelisay xuquuqda iyo protectionka muxuu ahaa dadka mucaaridka inay ilaaliso laakiin anigu waxaan isleeyahay xaqiiqadu dadkii mucaaridka ahaa ma ay qiimaynin ma ay garanin qiimaha ay leedahay nidaamka dimuqraadiga ah oo iskama ay taxgelinin inay iyagu ku tacadifalinin muxuu ahaa dhinaca kale xuquuqdooda waxa la waxay doonaan oo badiba qaynuun khilaafsan ayay ku hadlayaan marka ma u malaynayo dhinacooda inay ka soo baxeen mucaaridiintu waajibkii saarnaayo muxuu ahaa qofka mucaaridka inuu mucaarid noqdo waa yahay laakiin waxaan jirin iyo been abuur iyo waxa iyaga mas'uuliyadooda aan u ogolaan karin qofkii mas'uul uusan ogolaadeen ma hubo inay iyagu ka dhowrsanaadeen laakiin dhinaca maamulka dhisnaayo officialka ahaayo xukuumaddu wuxuu ku dadaalay inuu taxgeliya wax alla wixii wax faafinana waa loo ogolaa ilaa iyo xataa loo ogolaaday hadday rabaanba raadiyaashii muxuu xukuumaddu maamuleysay sidii doonaan inay uga hadlaan waxaad ka warantaa matalan tusaale ahaan Cabdirasaaq haddaad soo qaato waxyaabaha aad ku dhaliilaysay matalan mucaaradka waqtigaas jiray maxaa ka mid ahaa waxyaalahan ku dhaliilaya hadda kuwa hadda aan bilaabay oo kale waxaa ka mid ahaa bilxaqiiqati muxuu ahaa iyagu waxay ku dadaaleen wax alla wixii xukuumaddan muxuu ahaa dhaawici kara inayan ka gabanin been la abuuro iyo xataa mararka qaarkood muxuu ahaa xataa gacanqaadyo iyo muxuu ahaa ayan ka gabanin haba yaraatee xukuumaddu hadday ka samayn lahayd calaashaan u warcelin lahayd dadkaasna waxaa laga yaabaa inay xataa xaq u lahaan lahayd waxyaalo badan oo sharcigu sheegayay laakiin waxaanu aad iyo aad ku baraarugsanayn xukuumaddii ugu horreysay oo dhisantay weeye nidaamka kanu delikayd weeye waxa kanu waa nagu cusub yihiin intaan ka gaban karno si nidaamkaas uu qurux ugu muuqdo intaan ka gaban karno oo isaga ogolaano hadday sharciga jabiyaan hay-adaha u samaysan oo qabanaya laakiin inaan ku dadaalno marka waxyaalaha hadda ka mid ah waxaa weeye waxeeroo kale oo lacag oo ajaaniba dawladda baajiyada lacagtooda iyo ka badanba mucaaridka qaarkood dibadda ka helayay oo faafinayay oo xukuumaddu ay ogeyd
marka bilxaqiiqati muxuu ahaa uma aanaan dengelinin. waxaad ka warantay cabdirasaaq xilligaasi xukunka rayidka khaasatan markaad eegto waxaan filaya waxaad ka jawaabi kartaa waa intii adigu aad maamulka ku jirtay qabyaaladu dowrkeeda intee leeg buu ahaa ama musuq maasaqa ama eexashadu xagga maamulka markaad eegto bal sharax. qabiilku muxuu ahaa bilxaqiiqati waa iska jiray qabiilku muxuu ahaa mar walbaba qofkii raba inuu ku ugaarto qabiilka yaa ku ugaaranayay yaa qofkii muxuu meel raba inuu meel ku gaaro qofkii raba inuu dad taageero uga helo oo xukuumadda ka soo horjeeda xukuumadda lagu dacweynayo wax iska qabiil qofku hadduu rabo hadal iska guuda jumla waa jiray qabiilku laakiin qabiil lixaad loo bilxaqiiqati markaas sidii hadda waqti dambe muuqanaysay oo saas ma u jirinin musuq maasuq muxuu ahaa haddaan corruption iyo waxaas wax waa iska jireen baan u malaynayaa muxuu ahaa laakiin waxaan isleeyahay sida taariikhda hadda la heli doono haddii dib loo raaco la heli doono haddii africa oo dhan xataa loo fiiriyo soomaaliya waxay geli karaysaa meelaha ugu roonaa xagga corruptionka ayay jiri karaysaa baa la oran karaa. waxaad ka warantay cabdirasaaq adigu waktigii aad ra-iisul wasaaraha ahayd maxaad filaysaa in ahaayeen waxyaabaha isbedelka ee cabdirasaaq xaaji xuseen lagu xasuusan karo ee aad samaysay maamulkaagii ama tallaabooyinkaad waqtigaygii muxuu ahaa muddada horta sidaas uma dheerayn muxuu ahaa 3 sano meelahaasaan prime minister ahaa dadka aqoonta wuxuu hadday raadiyaan waqtigaygii xoogayga waxaan saaray waxaa weeye waddankan in loo helo nidaam administration shaqaynaya oo hufan oo karti leh labadaa eray baan ku dhaqmay aniga karti iyo hufnaan nidaam administration ah oo muxuu ahaa aan corrupted ahayn kartina lahoo wax qaban kara ayaan ku dadaalay waxaan ku dadaalay dad badan oo awal xukuumaddii maamulada ku jiray oo jagooyin wadaayay oo bilxaqiiqati intii xorriyada loo dagaalamayay dadaal ka soo sameeyey laakiin aqoontooda iska yarayd bacdamaha iyaga ka bacdigeed hadda dad badan oo wax soo bartay oo xiguba ay joogeen oo dhalinyaro ah oo wax soo bartay inkastoo ayan waayo aragnimo jirinin labadooda waxaan isdhegay aqoontu inay roon tahay kuwa badan baan meeshii ka qaaday waxaan keenay kuwii dhalinyarada ahaayoo wax soo bartay waxaan rajaynayay hadday muddo joogaanin waayo aragnimadiina way helayaanin marka iyaga ugu dhow muxuu ahaa hadhowto nidaam shaqaynayo efficiency oo wax garanaya in la helo eex iyo qurun inayan midkoodna inuusan jirinin ayaan xooga saaray waxaanan u malaynayaa inkastoo aanan oran karinin miro weyn baa laga gurtay oo muuqanaya haddana waxaan u malaynayaa geedkaasi inuu caleen cagaara inuu soo muujiyay baan qiyaasayaan. intii haddaba u dhaxaysay waqtigii ay Soomaaliya xornimada qaadatay iyo markii ay Britishka xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goosteen doonistii Soomaalidu ay doonayeen gobolladii kale ee Soomaalida kama soo reynin rajadoodii inkasta oo shirweynihii dadyaga Afrika ee la oran jiray All Africa People's Conference ee lagu qabtay magaalada Tunis bishii January sanadkii 1960 gobonimada ka hor la isku raacay go'aan u janjeeray Soomaaliweyn hase haatee kulankii kaasi ka dambeeyay ururkaasi uu ku yeeshay magaalada Qaahira isla sanadkaasi 1960 wafdigii Soomaalida ka socday si aad ah ayaa looga hor yimid kaasi oo aad moodayso inuu jid u noqday kulamadii kale ee Afrikaanku ay yeesheen oo dhan. Monrovia shir isagana lagu yeeshay 2 bilood kadib waxa qurax ee la isla gartay waxay ahayd in jamhuuriyaddii Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada hadlaan sidii ay u dhameyn lahaayeen khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan sohodimaha. marka qurax ee iftiinku u soo baxay dhinaca Soomaalida doodoodii ahayd Soomaaliweyn waxay ahayd madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan mar uu booqasho ku tagay waddanka Ghana oo isaga iyo Kwame Nkrumah ay wada jir war ay u soo saareen ay ku taageereen Afrika oo wada samaysata federation laakiin Kwame Nkrumah taageeradiisu waxa ay ku salaysnayd khilaaf xagga soodinta oo u dhaxeeyay Ghana iyo Togo. ugu dambeyntii wixii rajaa oo Soomaalidu ay ka qabteen Afrikaanku ay ku taageeri doonaan waxa iyagu ay doonayaan waxay burburtay bishii May markii magaalada Sabah lagu qabtay shirkii ururkamada Afrika lagu sameeyay oo la isku raacay in xuduudihii Afrika sidii ahayna gumaysigu u dhigay aan waxba laga bedelin. dhamaadkii sanadkii 1963 Soomaaliya go'doon ayay ka ahayd Afrika inteeda kale marka la eego. waxa iyaduna haboon inaynu soo qaadno in waddanka Masar oo hormood ahaa dalalka Carabta oo isla markaasna ahaa ka sida xoog gala isagu ugu lug lahaa arrimaha Soomaalida Masaaridu mowqifka ay ku jirta inuu ahaa mid aad u adag marka la eego Soomaalidu waxyaabaha ay doonayeen.
waxa masaaridu ay isku dayday sida Professor Ian Lewis uu ku qoray buugiisa la yiraahdo Modern History of Somalia markii ay taagnaayeen arrimihii NFD in labada dhinacba ay raali geliso isagoo reedowga magaalada Qaahira ee masaaridu qolaba afkeeda kula hadlayay oo ku taageeray qolaba waxa ay doonayso markii labada dhinacba haddaba ay ogaadeen reedowga magaalada Qaahira waxa uu sheegayo ayaa masaaridu arrintaasi ay joojiyeen Soomaalidu haddaba caradii ay ka cadhootay Britishka iyo saaxiibadooda reer galbeedku sida ay ka yeeleen arrimaha Soomaali weyn ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen sidii ay taageero meelo kale uga raadsan lahayn ra'iisul wasaarihii waqtigaasi Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu booqday Shiinaha iyo India waxaana laga filayay in taageeradu ay ka timaado dhinaca Shiinaha hase ahaatee waxa taageeradii ay ka timid dhinaca dalka la oran jiray Midowga Sofiyeeti bishii November sanadkii 1963 ayaa jamhuuriyaddii Soomaalidu si rasmi ah u sheegtay inay diiday taageero military oo dhinaca reer galbeedka oo dhamayd 6 milyan iyo badh geniga sterliniga waxaana ay qaateen taageero military oo Ruushku siiyay oo ku dhaweyd ilaa iyo 12 milyan oo geniga sterliniga ra'iisul wasaarihii waqtigaasi oo ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke markii uu booqashada ku tagay Midowga Sofiyeeti waxa danjira ka ahaa Axmed Maxamed Aadan Qaybe Mr. Qaybe waxaan wax ka weydiinay booqashadaasi siday ahayd Cabdirashiid Cali Sharmaarke isagoo prime minister laba goor buu Moscow yimid mar waxa ahayd 61 markii loo doortay prime minister ka bacdi bishii May 61 marka madaxdii Ruushka bariga halka dalka xukuntay oo Khrushchev u horeeyay ayay sarkeen marka xiriir uun in la wada yeesho xagga dhaqaalaha in wax Soomaaliya laga taray yimaadeen marka heshiis baa la galay ku saabsan xagga dhaqaalaha oo warshadooda tii caanaha iyo tii hilibka Kismaayo iyo ay ka mid yihiin ayaa kala seexday ka bacdi 63kii iyo Cabdirashiid soo laabtay markaasna de waxa laga wada hadlay yani sidii gacan Soomaaliya looga siin lahaa xagga militariga arrinka waxa ka yar horeeyay wafdi baarlamaani oo Moscow yimid ayaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo prime minister ka xukuumad ahaan u soo egmaday Jaamac Cabdullaahi Qaalib inuu kala hadlo Ruushka inayna siiyaan gargaar xagga militariga naga gargaaraan arrinkaas waa noo fulo Khrushchev oo badda madow u jooga nasasho ayaan ugu tagnay halkaas waan la hadalay fariintii ra'iisul wasaaraha u gudbinay adigu markii dambe wuxuu waayahay ra'iisul wasaaraha naftiisa hay yimaada buu yiri ka bacdi ayaa Cabdirashiid yimid bishii July 63kii isagoo u socda China ayuuna soo maray way sarkeen Khrushchev waxa markaa ay ballan qaadeen inay Soomaaliya diyaar u yihiin inay ka caawiyaan xagga militariga iyo hubka militariga waxaanu ka codsaday inuu soo diro generaalkii ciidamadeena xukumay General Daawud Cabdullaahi Allah yarxamee bishii October isla sanadkaas wafdi uu hogaaminayay Daawud Cabdullaahi Moscow noo yimaadeen marka waxa la guda galay sidii macaawinadaas waxay ka koobnaan lahayd waana lagu heshiis baa la kala seexday waxa marka taa la socotay hadii hub la siinay bay yiraahdeen Ruushku dadkii isticmaali lahaa hanan lahaa in loo tababaro marka dhowr boqol oo ciidamadii ayaa Moscow loo soo qaaday oo dalkii loo jeeday Soviet Union qaybihiisa la kala geeyay wax ku baranay halka marka arrinka ay weydiisay intaas uu markaa ku koobnaa arrinta military ku koobnaa Cabdirashiid marka China noo dhaafay wax kale oo markaa laga wada hadlay ma jirin waxaad ka warantay Axmed dhinaca Soomaalida maadaama aad sheegtay iyagu wixii ay doonayeen Ruushka dhinaciisu markaad eegto maxaa hindisaha ugu weyn u watay marka dhinaca Soomaaliya eegto ama uu ka doonay Ruushku Afrika siyaasad buu kala ahaa inuu Afrika ama dawladaha caalamka ee xoroobay ee wixii loo jeeday decolonization ku xoroobay inuu cilaaqaad la sameeysto oo waa tartankii ka dhaxeeyay qarbiga iyo dawladda loo jeeday Soviet Union arrin ku salaysan bay ahayd kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo ah danjirihii ugu horeeyay ee Soomaalidu ay u dirtaan dalkii la oran jiray Midowga Sofiyeeti imakana gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalka lama baxay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo warayskaasi aanu ka qaadnay haddaba doorashooyinkii madaxweynenimada ee Soomaaliya ka dhacay bishii June sanadkii 1967 waxa ku guuleystay Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaanu bedelay Aadan Cabdullaahi Cusmaan oo lagu tilmaamo inuu yahay ninkii ugu horeeyay Afrika marka la eego isaga oo hab dimuqraadiya lagu soo doortay hab dimuqraadiya oo wax turxaan lahayn ku dhiibay taladii markii Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu noqday madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ra'iisul wasaare uu ka dhigay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal
waxaa markii ugu horraysay samaysantay dawlad labada ruux ee ugu sarreeya ay ka socdaan waqooyi iyo koonfurba waxaana burburay isaguna ururkii la odhan jiray SNC oo ahaa xisbigii ugu horreeyey ee isu keena mudanayaal mucaarid ku ah dawladda oo koonfur iyo waqooyiba lahaa xisbigaasi oo ay sameeyeen sheekh cali jimcaale iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo mudanayaal baarlamaanka ku jiray oo ilaa iyo 20 ahaa dawladdaasi cusub haddaba markii talada ay la wareegtay xaaladii gobolladii Soomaalidu ay raadinayeen waxba iskama bedelin French Somaliland ayaa iyadu hase yeeshee 2 bilood ka hor intii aan isbedelka xagga hoggaanka jamhuuriyadda Soomaalidu aanu dhicin afti laga qaaday reer Djibouti waxa mar kale ay ogolaadeen ama ay doorteen in xukunkii Faransiisku uu sii socdo waxa kaloo la bedelay magacii dalka oo ahaa markii hore French Somaliland oo laga dhigay dhulka Cafarta iyo Ciisaha dawladdii cusbeyd ee madaxda uu ka ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal waxay bilowday in siyaasadii lagu raadinayay gobolada maqnaa ee Soomaalida ay wax ka bedesho oo hab diblomaasiyadeed oo ka qabo kii hore ay raacdo kadib haddaba markii wadahadalla ay isdhaafsadeen wafdigii Ethiopia uga qayb galay shir madaxeedkii ururka midnimada Afrika oo ka dhacay magaalada Kinshasa bishii September ayaa maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo Jomo Kenyatta waxa ay ku kulmeen markii dambe magaalada Arusha ee dalkaasi Tanzania iyadoo uu dhexdhexaadinayay madaxweynihii waqtigaasi ee dalka Zambia Kenneth Kaunda goobjoogna uu ka ahaa madaxweynihii dalka Tanzania ee waqtigaasi Julius Nyerere waxaana ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey in si dhaqsa xiriirka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya caadi looga dhigo waxa kaloo taas ka dhashay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Britain oo iyagu ay hore u kala goosteen in isagana la soo celiyo talabadaasi uu qaaday maxamed xaaji ibraahim cigaal kuwii iyagu haddaba markaas siyaasi ahaan ka soo horjeeday si aada ayaa waxay ugu dhaleeceeyeen inuu dalkii wareejiyey doorashooyinkii dhacay bishii March sanadkii 1969 waxaa ku tartamayay 102 ruux oo isu soo taagay 123 kursi axsaabta u tartamaysana waxay ahayd 62 xisbi xilligaasi waxa dawladda cigaal si xoog leh loogu eedeynayay in hantidii dalka ay ugu gashay doorashadii iyada oo axsaabta la sameeyay qaar badan oo ka mid ah ay ku dhisnaayeen reernimo waxa si xoogoobay qabyaaladii allah u naxariistay Cabdilaahi Suldaan Timacade oo lagu yaqaanay qabyaalada aad u nacbaa aan idinku dhaafno min qalbila قرآنك وقرية غافلين كوارانية كتب سيدي لكو قريرايا غير خير غيرك كخالي وننك غليوا للكي كالي وننك غليوا للكي قد لريدي قرآن تذكشا قبضة ووالينسة هدوك الغلال روبكو ووقمع قليلا درحيك قرنكو ومسورو اوابو قود صداي غسر لحدنا هدان ليسكا غبانين غبايلي يجيرو لنوعو قاد كان لقوا شي قد تجيري وديالتو اي قولك كويسو قبيا ويسو ما لذا غير ذا قرار واني ناسديو نيني كييو نيني جازو هيزداو أفسو مالي قداد شيون إلدو بين وليقيسي زومالي أيدي الكعبة انفراريو خينيليو أنا كافرونيو واكيان قاد قايو أسلبانو عينيو ودرر الأزاريو وبحان اسكالينيو وريوركو كراغيو اير الاسكا حباريو اربار كدنبيا انتبا كجرتينو وحيادو ايدي موغنكري ويلي taariikhda Soomaalida waxaanu kaga bilaabaynaa doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyaddii Soomaalida sanadkii 1969 waxa aqlabiyadii ku guuleystay xisbigii waqtigaasi talada wadanka hayay ee la oran jiray SYL inkastoo axsaab tiradoodu ay ka badnayd 60 ay ka qayb qaateen doorashooyinkaasi ase yeeshee mudanayaashii baarlamaanka ee ku guuleystay doorashooyinkaasi ee ka tirsanaa axsaabtii mucaaradka dhammaantood waxa markii dambe ay isku shubeen amaba ay ku biireen xisbigii talada hayay ee SYL marka laga reebo Cabdirasaaq Xaaj Xuseen
waxaa taasu markaasi ay u muuqatay in jamhuuriyaddii soomaalidu markii ugu horraysay ay yeelatay xusbi keliya. hase yeeshee dowladdaasi muddo dheer ma jirin. madaxweynihii dowladdaasi allah u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke ayaa bishii oktoobar 15 sanadkii 1969 lagu dilay magaalada laascaanood isagoo markaasi booqanayay gobollo waqooyiga ku yaal oo abaari ay ka taagnayd. madaxweynaha waxaa dilay nin ka mid ahaa askartii booliiska ee ilaalinaysay. ra'iisul wasaarihii dalka maxamed xaaji ibraahim cigaal markii madaxweynaha la dilay waddanka dabadda ayuu kaga maqnaa. waxa uu joogay dalka maraykanka oo uu kaga qayb galayay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sannadkaasi. kulankaasi mister maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ka hadlay bishii oktoobar 7 sannadkii 1969 oo 2 toddobaadun ay ka horraysay wakhtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen. hadalkii maalintaasi master cigaal uu ka jeediyey qaramada midoobay waxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu u doodayey xuquuqda falastiiniyiinta iyo in dalweynaha shiinaha loo oggolaado qaramada midoobay. waddankaasoo sida aad imika ka warqabtaan ka mid a waddamada awoodda fiidtooda ah ee diidmada qayaxan la yidhaahdo kulle qaramada midoobay oo xubinna ka ah golaha ammaanka. bal qadar aannu idinka maqashiinna hadalkiisii oo af ingiriisiya. to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle... waxa uu yidhi maxamed xaaji ibraahim cigaal suurtagal ma aha in dal aynu ka doonno inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aammada ku gaadhno. waxaa taasi soo raacda buu yidhi inaan la filan in awoodda jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a ah in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado. waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo wafdigayguba aannu taageeri doonno sidii aannu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suuro gelinaya jamhuuriyadda dadka ee shiinuhu in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay, haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay-adaha kaleba. haddaba maxamed xaaji ibraahim cigaal markii lagu wargeliyey in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka si ugu howlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela allah u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke. maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo intii taageersanaydba waxay u ololeeyeen in jagada madaxweynimada loo doorto allah u naxariistee xaaji muuse boqor. arrintaasi markii ololaheedu muddo uu socday waxaa kulankii ugu dambeeyey la isku afkartay in xaaji muuse boqor loo sharxo jagada madaxweynenimada habeennimadii oktoobar marka ahayd 20 hase yeeshee laguma simin in taladaasu ay meel marto. gododada dhulkeennu habeenkay gilgilatee guddidii heshiise golatoradee sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guush nololeed. taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guush nololeed. wixii u geeyey gabadhyay balii sheeg gabadhyay balii sheeg. wixii u geeyey gabadhyay balii sheeg gabadhyay balii sheeg. habeennimadii 21 oktoobar sannadkii 1969 ayaa ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka Soomaaliya. askarta haddaba talada la wareegtay ee golihii sare ee kacaanka waxaa ka mid ahaa cismaan jeelle.
cismaan waxa uu iminka joogaa waddanka boqortooyada sacuudi arabiya aadan nuux dhuule ayaa waxa uu weydiiyey waxa berigaasi ku kallifay in dawladdii rayidka ahayd ee soomaaliya ee la soo doortay ay afgembiyaan iyo muddada ay wadeen bal haddaynay tallaabadaasi qaadaan guuxu waa iska jiray ilaa intii uu dadweynuhu bilaabay inuu ka cawdo dhaqan siyaasadeedkii hogaamadii rayidka ahaa ku kala dambeeyey maamulka dalka ilaa iyo markii la qaatay xorriyadda iyagoo uu arkaya dadweynuhu inay wada daba mareen ujeedooyinkii gobonnimada loo dhaliyey marka iyadoo arrintu sidaa aheed ayaa haddana kalsooni darradii waxa ay sii fogaatay kadib markii dalka uu ka dhacay bishii mars 1969 doorasho sidii loo maamulay ay reebtay urkutaallo weyn oo ummadda ku qancisay inay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga sugi karayo maamuladan haddaba ciidamadu ayagoo qayb ka ahaa shacbiga lana wadaagay walaacaas guud waxay ahaayeen kuwa arrimuhu sida ay u socdaan indhaha ku haya dareenkoodani waxaa kusii weynaaday inuu dalku halis ku jiro oo u baahan yahay in laga badbaadiyo arrintu halkaas markii ay maraysay ayaa waxaa la dilay madaxweynihii dalka ee waktigaas doctor cabdirashiid cali sharmaarke ayadoo loo aaneeyey dilkiisaas arrimo la xiriiray sidii loo maamulay doorashadii dalka ka dhacday sanadkaas isaga ah marka sidaan wada xusuusano durbadiiba xubnihii baarlamaanka ugu jiray xisbiga leegada oo isagu xukunka hayay iyo golihiisii dhexe ayaa ku shireen xarunta xisbiga ee muqdisho si la isula meel dhigo ciddii bedeli laheyd madaxweynahaas la dilay arrintaa ayada ah oo is-afgaran waa uu ka dhacay dagaal afeed xoog lehna uu dhex maray raggii taasina waxay soo dedejisay dhashada kacaanka si loo badbaadiyo qorannimada iyo dawladnimada iyo iyaga udoodana si loogu kala hagoogto wakhtigaa ay baarlamaanku shirayeen ee laga hadlayay sidii dawlad loo dhisi lahaa idinkoo hindisihiinu miyuu ka horreeyey mise uu ka dambeeyey maya wuu ka horreeyo qorshe ka horreeya waa jiraa de maxaa weeye niyad xumada dadweynuhu mauna bilaaban waktigaa ay shirayeen iyagu ee wuxuu bilowday doorashadii ayuu la bilowday oo doorashada ka hor ayaa waxaa jirtay saluug fara badan oo loo qabay maamulada marka fikraddu way taagneed laakiin waxyaabahan dambe way soo dedejiyeen intee in leeg baa markaa idinku muddada awoodeen hawsha ama marka taladii ugu horraysay ay isugu timaadeen inaad talada la wareegtaan intee in leeg bay ka horraysay xilliga doorashada waxaan oran karayaa ilaa 6 bilood meelaha qiyaasta waa tacisma waxaad ka warrantaa haddaa markaa isugu timaadeen kulankiinii ugu horreeyey saraakiishiinii ciidamadu maxaa waxyaabihii ugu horreeyey markaa aa ku taliseen matalan ay istidhaahdeen tallaabooyinka caynkaasa qaada sida la ogyahay haddii nidaam cusub uu yimaad ama nidaam militariga uu la wareego xukun markaa jiray oo dastuur ku dhisnaa de waajibka ugu horreeya waxa weye horta bal dastuurka in la joojiyo maxaa yeele dastuurku lama saan qaadi karayo kacaan iyo military meel qabsaday marka durbada horta waxaan laalnay dastuurkii ayaanu joojinay ku dhaqankiisa waxa kale oo aan ku dadaalnay bal inaan mataqaana aan maamulkii una hakanin oo sidii ay u socdaan hay-adihii dawladdu waxaan u yeeranay nimankii agaasimeyaalka guud ahaa ama maareeyayaalka ama shirkadaha madaxdu ahaa waxaanan siinay mandate ama awood ay kusii maamulaan mar haddii wasiir korka maamulaya una jirin intii wasaarad laga dhisayo marka nabadgelinta kacaanka iyo dhidibow aasidda nidaamkaa cusub oo dhashay ayaa wixii aan ku dhaqaaqnay ugu horreeyey waxaad ka warrantaa cismaan maadaama aad sidaad ii sheegtay aad dastuurkii laasheen baarlamaankiina aad kala dirteen doorashadii ka horraysana aad dhaliilayseen oo lahayd sida u dhacday ma wanaagsanayn idinka lafahantiina wakhtigii aad talada la wareegayseen ma idiin muuqatay doorashadii ceebahay doontaba ha lahaatee haddana dadku inay xor u haayeen iyagu cidday doonayaan inay doortaan laakiin idinku aad taa ka qaadeen markaa ma idiin muuqatay
nooma muuqan maxaa yeele hadday noo muuqato dee mala samayneenba afgembiga waxaa noo muuqatay annagu dee xoog baan ku wala wareegnay meeshii laakiin dee in nidaamyadii markaa jiray dadka soo dhici jireen maanay ahayn mataqaanaa waxa la yidhaha qofku xorriyadiisa qofka uu kusoo dooranayay magac ahaan way ahayd waxa weeye waxyaabahan la yidhaha waad ogsan tahay adduunka waad la socotaa waxaan hadda ay yidhaahdeen dimuqraasiyada waxay ku timaad tartan xalaal ah oo caddaan ah oo la yaqaan oo qofku wuxuu sheegaya iyo meeshuu ka yimid iyo xataa meeshii uu kambaynka uu gelayay ama tartanka dacaayadii uu samaynaya lacagtii meeshuu ka keenay marka waxa weeye adduunka ama waa in wixii sidii dadkii samaystay oo reer galbeedku ay u samaysteen loogu dhaqmaa ama de waa inaan laga been sheegin marka annagu been ma aanaan sheegin waanan u bareerinay inaan dadka usoo dhicino ayaan annaga kolley ujeedadeenu ay ahayd laakiin de iyagu mataqaanaa awooddii iyo dhaqaalihii dawladda ayaa lagu geli jiray anigu nin ahaan waxaan xoogga dalka soomaaliyada wakiil uga ahaa xafiiskii hogaaminta doorashadii 69 say wax u dhacayeen iyo ciidamadana la weydiinaya meesha loo diray iyo cabashooyinka soo dhacayo intoo idil badan akrinayo goobjoogniman u ahaa taa waxaa dheer de dadka nafsadooda way caba jireen maansooyinkooda laga garanayaa heesahooda laga garanayaa gabayadii baa laga garanayaa waxa taas gabagabadii wada caddaynayo markii annagu aan ade caddaynay in ciidamadu la wareegeen meesha ummadda soomaali meel kasoo joogtay hambalyay noo soo wada dirtay waa soo banbaxeen waxa inaga hor yimid oo maxaad u samayseen la yidhaha baga mooye maanaan arag sidii haddaba loo soo dhoweeyey afgembigii ciidamada wuxuu ahaa mid xoog leh sida heesaha gabayada iyo shucuurta dadweynuhuba ay muujisay hase yeeshee dowladihii ka horreeyay ee rayidkahaa raggii iyagu hogaaminayay sidee ayay u arkeen soo dhoweyntaasi ciidamada dadweynuhu ay soo dhoweeyeen cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii soomaalida ayaanu arrintaasi wax ka weydiinay bal sida uu arko soo dhoweynta xoogga leh ee la siiyey ciidamada wakhtigaasi waxaanu yidhi waxay u soo dhoweeyeen muxuu ahaa mid horta meel kasta oo inqilaab ka dhaco waxaad arkaysaa wixii cusub baa dadka u sacbinayaan waxaana ku wacan waxaa weeye waxa cusub baa intii awal wixii horoo jiray aan wax ku haysanin oo ayagu ay yihiin aqlabiyadii waxay rajaynayaan nidaamka cusub baa yaa wixii hore wax ka fiican idiin keenaya oo iyagu weeye riyadaasi iyagu isu sheegayaan marka Soomaaliya kuwaas oo kale ka mid ahayd muxuu ahaa markii military qabsaday oo khudbad la akhriyay oo la yiri xukunkii hore oo idin laqay tuugada ahaa wax walba dhameeyay annaga ka fiican wax ka horeeyo military hadda ka hor leeyahay wara walbaanu idin ogeeyna ma jirinin waxa hore kale ay ballan qaadeen kanaanu sameynayna kaasaan sameynayna cadaalan keenayna sidii ana wal cadaalad jirinin barwaaqaanu meel walba ka dhigayna iyo cagaar dadweynihii way u sacbinayeen marka la yaab ma lahayn maxaa jira meel kasta oo kale Asia iyo Africa iyo Middle East iyo meel alla meeshii inqilaab ka dhacay oo dhan haddaad la socotay saasa ka dhacaysay marka there is nothing muxuu ahaa oo la filan waayo dadweynuhu inay u sacbiyaan wixii isbedelay ma ay jirinin sidii uu haddaba sheegay Cismaan Maxamed Jeelle markii ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka waxay u yeedheen rag tiradoodu ay ahayd ilaa kontomeeye oo ahaa mutacallimiintii markaasi la tuhmayey ama jagooyinka sare ka hayay xagga maamulka raggaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo wakhtigaasi ahaa agaasimaha guud ee wasaaraddii qorshaynta markii kacaanku uu qabsadayna waxa uu noqday wasiirkii ugu horreeyay qorshaynta ee dalka Soomaaliya imikana waxa weeye wasiirka qorshaynta ee dalka la magac baxay Jamhuuriyadda Somaliland
haddaba aadan nuux ayaa siilaanyo oo iminka jooga magaalada london waxa uu weydiiyey u yeedhiddii ciidamada qabsaday talada dalku ay u yeedhaan isaga iyo raggii kaleba. runtii waxa weeye markii ay ciidamadu meesha qabsadeen waxa marka hore waxay isla galeen xeradii la odhan jiray afisyon oo ka mid ah xerooyinka ciidamada iyana may kala socnayn markaa way isku waday dhex jireen ciidamada militariga saraakiil badan oo ka mid ah iyo kuwa booliiska intuba way ku jireen. annagu markaa ciidamada qabsaday mooyaane maan ogeyn exactly cidda qabsatay dadka qabsaday kuwa ay yihiin. isla markaa waxaa lasoo urshiyay dad badan oo rayid ah oo mutacalimiin iyo waxgarad loo arkayey siyaasadana aan toos ugu jirin oo la isugu keen qolka shirarka taliska booliiska. raggaa intaa ay qolada ciidamadu shirarka aan kala go-a lahayn ay u fadhiyeen oo marka dambe aan ogaanayno inay iskala hufayeen oo weli aan raggii noqonayay xubnaha golaha sare kacaanka markii dambe la bixi doona aan weli ayn iska xulina ay intaa ka badnaayeen. annagana raggaa aan sheegayaan ka midka ahaa layidhi kasoo baltaliya siday idinla tahay in dalka loo maamulo. waxaan ka xusuusanahay talooyinkaygii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa in raggan ciidamada qabsaday wax kastaba ha ahaadeene ayan maamulka dawladda iyagu ayan qaban oo askarahaan ayan qaban ay ku ekaadaan inay guddi samaystaan dusha ka ilaaliya maamul dawladeed oo rayid ah oo markii doono la bedeli karo ama cid laga bedeli karo iyaguna ayan hawsha toos faraha ula gelin. kaasi qodob aada muhiima buu ahaa. qodobka kale wuxuu ahaa in labadaa hay-adood midna ay toos maamulka dawladda tahay midna golaha sare ee ciidamada ka kooban uu yahay inaan marnaba inaan qof wada xukumin ay laba hay-adood oo kala madax banaan oo mid walba shaqadeeda ay tahay. talooyinkeygii bay ka mid ahayd. runtii markii ugu horreysay beryaha ugu horreysay weliba intaan la faaniyo intii bilowgii qodob way ka qaateen oo may soo gelin dawladdii ugu horreeyey la sameeyey may soo gelin ciidamadii meesha qabsaday. waxa ahaa difaaca ayuunbaa ka ahaa muxuu ahay ciidamada inta kale civil bay ahayd. waana beryihii aada moodasay in wax dhaqdhaqaaq badan iyo hawlo badan ay socdeen. qodobkasi aan la qaadan oo markii dambe dee waxaan dunida isku dhabqiyey ee kharibay uu ahaa oo aan taladii raggu berigaa soo jeeshay aan la yeelintii ahayd inaan qofu madaxooda noqon. maxamed siyaad baa labadiiba madax u noqday. markuu muddo ka bacdi joogayna maxaa laga kala shirayaa bal labadiiba dhexdaa la isu dhigay. marka way marka arrintu runtii ay dabaqday laakiin taa aada iyo aad baan u xusuustaa. ciidamadii haddaba talada qabsaday oo aan intii hore la garanaynin kuwa ay yihiin waxa ay kala miirmeen 1dii bishii November sanadkii 1969 oo la soo saaray xubnihii golihii sare ee kacaanka oo tiradoodu ahayd 25 xubnood. su-aasha haddaba la isweydiin karaa waxa ay tahay dhegaystayaal ciidamada talada qabsaday ma ku tala jireen in talada rayidka ay ku soo celiyaan. cabdilaahi xaaji ayaa maxamed siyaad barre 1972 waxa uu weydiiyey goorta ciidamadu xeryahooda ay ku laabanayaan. waxa uu ku jawaabay والله جيل هذا الكاس هو بالبلارية wuxuu u balbalaaraya sad hadii adigu u fakarayso ama hadda meesha ka timid looga fakaro iyo sida halka aan uga fakarayno waxa suurtooda inay kala duwan yihiin. marka haddaan ku jawaabo saan halka uga fakarayno baan kugu jawaabaya. waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeraleyda iyo dadka shicbi weynaha iyo askarta inay dad isku dada yihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nalata. hase yeeshee meesha Soomaalidu ama waajib ay u tahay inay ka fiirsataa ama annaguba hadda aan qabno in laga fiirsada inay tahay warninka aynu hawsha u dhiibanay manin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqeynayo caadilnimo noogu shaqeynaya dhibkanagu is dhibkiisa yahay dantanada annagu ogeyn nooga shaqeynaya sawaanin khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beer nagu dul samaysanaya oo daar nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala meel ka buuxsanaya sawaanin daacadaho xuquuqda jecel iyo hor u kaca ummadda kulligeedo idil annaga halkaas bay saas bay nooga muuqataa. marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya yani midal xukum askariya baatiri anigu ma yahay anigu waagi hore askari ahaan jirta hadaan laygu tilmaamaynin
intiisi kale yaa haya soo dadka dhalinyarada mutacalimiinta oo raacida oo dalka joogay soo ma hayaanin haddaba se waxaan leeyahay mid aad ujeedo waa garanaya election goormaad samaynaysaan ayaad ileedahay taasaad u socotaan xaggiina saas baa looga fakaraya waxaanu samayn doonaa markii dadku uu haddaba heer fiican buu ismarahayaaye ay maskaxdiisu ay sida aan u sheegayay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa marka talada ay goosanayaan iyo ninkay xulanayaan labadaba ay yaqaaniin mid wax ugu yaala oo iyaga maslaxadooda hogaaminaya inuu yahay maalida aan ku bilaabay haddaba golihii sare ee kacaanku markii talada waddanka ay qabsadeen waxaa si firfircoon ay u bilaabeen wax ka qabadkii xagga horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada waxay ku bilaabeen hase yeeshee talooyinkii xagga degmooyinka iyo gobollada inay kala wareegaan saraakiishii haysay oo ay ku wareejiyaan saraakiil da'doodu yar tahay oo ciidamada ka tirsan bishii Oktoobar sanadkii 1970 ayaa golihii sare ee kacaanku ku dhawaaqay in dalku uu qaatay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan waxa weliba taa lagu lamaanayay iyadoo si xoog leh loo cambaareeyay qabyaaladii dowladii militariga ahayd markii ay qaadatay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan si ay u muujiso inay ka soo horjeedo qabyaalada waxay ku dhaqaaqday in iyadu mas'uul ay ka noqoto kharashka ku baxaya dadka ku dhinta magaalooyinka ee markaasi magaalada aanay u joogin cid asta waxa iyadana la dhiirigeliyay in aan mag la kala qaadanin iyadoo oo la soo saaray sharci markaasi qofkii qof dila loo dilayo xilligaasi waxa la gubay wax loo ekeysiyay amaba laga dhigay inay yihiin qabyaaladii musuqmaasuqii iyo eexashadii oo la aasay markii dambe ereyga inaadeerna waxa lagu bedelay jaalle haddaba dhegaystayaal cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka kana mid ahaa raggii ugu dhallinta yaraa wakhtigaasi ayaa waxaanu weydiinay markii la qaatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan wixii ku kalifay isaad ogsan tahay horta rag hadduu meel isugu yimaad oo xukun wadaag yahay oo xukunku u dhexeeyo dee qasab maa horta dhammaan in la wada aaminsan yahay fikrad kastoo la keeno de kulley ma aha 100% in la wada aaminsan yahay waxaa dhici karta daan markay qaban inay jireen waxna u kalifay anigu nin ahaan runtii ma arkaynin horanu ma arkaynin haddana mataqaanaa ku oran maayo waa jireen laakiin kulley sidaa ayaa mataqaanaa loo batay sidaa ayaanu ku yimid kulley sidaa ayaanu ku qaadanay waxaa jira adduunka laba system waktigaa waad ogsan tahay waxaa la yidhaha systemkan capitalismka ah iyo socialism socialismka dalal badan baa qaatay oo carabta inteeda badan way qaadan jireen intaan boqorada ka ahayn laakiin annagu midda aan ku gefno waxay ahayd weliba waan sii korino waxaan idhi hanti wadaaga cilmiga ku dhisan taasoo aanan ahayn mid mataqaan munaasab ahayd xataa kuwii mataqaanaa macallimiinta u ahaa oo ruushkii anigu hadde xiriir ma lahayn oo dadka afiqaan ma aanan ahayn laakiin kolley qaar naga mida ayay aada mataqaanaa adigu isu yaqiineen waxa ay noo sheegeen inay kala taliyeen kacaanka oo ay yidhaahdeen haqaadanaha waktigiisi ma joogtiin dadkiinuna ma noqon karayo dhaqaalihiinuna uma habaysno marka adigu dooda way iska jireen de haddii sidaa ay leeyihin kuwii macallimiinta u ahaa maxaad inoogu wadaan anaga wax nagu kalifaya ma jiraan iyo adiguna hala qaato iyo go-aankuna kadib wuxuu ku dhamaaday in la qaato marka aniga hadaad hayaani weydiiso wax nagu kalifaya inay jireen ma qabo ma ruushkaa lafahantiisu idin laha ha qaadanina sida aad sheegtay saaxiibadaha siday sheegeen waddankiinu diyaar uma he sidaasaa la igu yidhi waa allah u naxariista maxamed siyaad nafsadiisa ayaan dhowr jeer ka maqlay cismaan maxamed jeelle waxa aanu weydiinay oo kale dadkii Soomaaliyeed ee ay ugu dhawaaqeen golihii sare ee kacaanku qaadashada hanti wadaaggu sida ay u arkeen gudaha Soomaaliya haddaan horta ka bilaabo dadkeenu uma habaysnayn ama waxay u arkayeen hanti wadaagga waxay u arkayeen inay diin la-aan tahay waana baad mooday fikradahooda kulley un inay sidaa u dhaweed mar haddii anagu aan sii durugnay aan idhi mataqaanaa waa hanti wadaaga cilmiga ku dhisan marka ma una fiicnayn gudaha jawaabtii dadweynuhu ama aada ugumayna faraxsanayn waana dareemi karnay runtii mataqaana kulley un raggu waa wada dareemi kareen mid un haddaan la isdiidsiinayn maxaa yeele ummadeena waa wada muslim nin kasoo da hadda anan dhaqamadeeda markaad eegto aada iyo aad aad ula yaabaysid laakiin haddana niyad ahaan waa dad muslimnimadu
ay tahay waxba waran kartaa waa qabiilkoodaba inaanu qaadano waxyaaba kasoo horjeedo diintiis aaminsanaayeen wax aada iyo aada u qallafsan bay ahayd waana runtii kolley muuqatay markiiba haddaba haddii dhegaystayaal dadkii soomaaliyeed ee loogu dhawaaqay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan ay sidaas iyagu u arkeen su-aasha kale ee la isweydiin karaa waxa ay tahay waddamadii dibadda ee muslimiinta iyaguna sidee ayay ugu muuqatay soomaalida hanti wadaagga cilmiga ku dhisan qaadatay aan mar kale idinku celiyo cusmaan maxamed jeelle oo isagu ahaa ninkii loo xil saaray inuu soo qanciyo waddamada carabta qaarkood waxaanu yidhi haddii dawladaha dibadda ama islaamka la yidhaah horta waxaana ninkii golaha sare ay u direen dawladaha carabta ayaga ayaa noo ood dhow dawladaha islaamka ah bal si uun loo qaboojiyo waxyaabihii ka yimid oo kasoo dhacay marka waxaan kugu sheegayaa run ahaan markaan waayo aragnimo kaaga warramo iyo goobjoog ahaan ma aanu fiicnayn marka laga reebo dalal ayaga u dhoodu hanti wadaag horey u qaatay laakiin anaan ku talax tegayn oo hanti wadaag bas uun madaxweyne xaafid asad madaxweynaha suuriya oo hore aan isu naqin markii aan u tegay oo yidhi war asmaan miyaad waalateen ma hanti wadaagii annagu aan la liidanay dadkeena saan uga dhaadhicin ayaad sii kordhiso haddana mid cilmi kasii dhigteen marka dadkii noogu horrey waayo aragnimo ahaan oo dalal islaama xukumayey oo madax ahaa sidaa ayay intii nasiixa ay noola yaabanaayeen kaasi waxa uu ahaa cismaan maxamed jeelle markii haddaba hanti wadaagga la qaatay ayaa isla markiiba waxaa la bilaabay in la koolkooliyo maxamed siyaad barre amaba magaciisa la dhiso sidii ka dhacaysay waddamadii kale ee hanti wadaagga ahaa sawirradiisii ayaa meel walba lagu wareejiyey isaga iyo nimankii aabbayaasha u ahaa mabda'aasi ee marx iyo lenan waxaana la tiriyey gabayo iyo heeso badan oo maxamed siyaad barre lagu ammaanayo dhegaystayaal haddaba maxamed siyaad barre ammaantiisu ma koobnayn waxaa loo bixiyey magacyo badan oo ay ka mid ahaayeen aabbihii ummadda aabbihii garashada iyo guulwada siyaadba askartii haddaba talada qabsatay waxay ururiyeen carruurtii agoon tahayd iyo kuwii iyaguna iska dabadyaalka ee aan haysanin cid taakulaysa waxaana la geeyey xeryo waxbarasho iyo taabaro lagu siiyo oo ay ku noolaadaan xagaagii sanadkii 1972kiina waxaa la abuuray ciidamadii la odhan jiray guulwadayaasha oo badankoodu ahayn dadaan wax shaqo haynin oo suuqa laga soo ururiyey markii haddaba la qaatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan maamulkii dhaqaalaha ee dalka dowladda ayuu gacanta u galay dowladdii milatariga ama kacaanka haydna waxa ay qaramaysay shirkadihii gaar ahaan loo lahaa iyo wax soo saarkii dhinaca beeraha waraysi uu b b c da siiyey maxamed siyaad barre wakhtiyadaasi oo lagu weydiiyey waxa dowladdiisu ay dadka baac mushtariga ugala wareegtay shirkadaha maxamed siyaad barre waxa uu ku jawaabay jaalle gabar baa walaalkeed naaska qabtay waxay tidhi naaska walaalkay qabtay hadba waa saan ka dhigta waxaan haatan annagu leenahay markaanu taa yeelaynay ummadda soomaalida oo badan maslaxadeedaan ula soconay marka haddee ninkii beecushariga ahaa waa hadba suu ka dhigta haddii uu taas u gartana waa nin fiican haddii uu keligay anoolaada inta kale ha dhimato isu gartana isagay jirtaa laakiin annagu danu nagama hayso waxsaan ku leeyahay
ninkii haddii xoolaha lahaana horey baanu la hadallo waxaanu nidhi u leexo xagga warshadaha oo annaguna aan kaala shaqayno oo dawladda nafteeda ha kaala qayb gasho oo sheer ha yeelato ama qaar ha yeelato kuwii shaqaalaha ahaana dawladda tanba shaqaalaha leh dawladda nafteedaba iyagaa leh shaqaalaha iskale iyo dhallinyarada yaa iskale dadka naga waaweynu bacdamaa ay yihiin dadkii carruurtaas aan sheegahaya dhalay danba annagana waajibkanaga wey inaan carruurtii korino oo weynayno oo iyaga mas-uulkii u gudbino anaan annagu meeshii haysanin oo keligana anaan xukumin barnaamijkii qaramaynta ahaa ee ay ku dhaqaaqday xukuumaddii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre waxaa fikradaheeda waxqabad ay ku fulin jirtay barnaamijkii la odhan jiray iskaa wuxu qabso hase ahaatee amuurta ugu qiimaha badnayd ee ciidamadii talada dalka qabsaday ay fuliyeen oo laga yaabo inuu ruux kastaana ka marag furo waxay ahayd qoritaankii farta soomaaliga oo la qaatay xuruufta laatiinka sannadkii 1972 maxamed siyaad barre oo ka hadlayay in af soomaaliga la guddoonsaday in la qoro kahor intii aan la hirgelinin waxa uu yidhi gunnimo cilmiya ama tacliina wax afka hooye aan ahayn oo naga bixin karaa ma jiraan marka taas markaan garanayna cilmigii kale waa badan yahay waana ballaaran yahay wixii lagu baran karaa waa afka hooyo mid kale laguma baran karo taasaa kaaga bixin karta jahaalada amaba addoonnimada cilmiga kaa saari karta marka saa darteed afka hooyo ayaanu dhigaynaa waqtigii ku oran maayo barnaan dhigayna iyo saa dambaan dhigaynaa kuma lihi waxaanan kuu lahayn waa wax ka dhexeeya guddiyaalka ama dawladda ka dhexeeya inay u fariistaan iyagu maalin hible yidhaahdaan oo gooyaan may anigu kuma aan maalin hible ku dhihi maayo laakiin waanu dhigaynaa kulliganana walow anaan goynin maalin fulaan waa isku ogolnahay wax kale oo soomaaliya ay uga bixi karto aqoon darrada ama gumaysiga cilmiga ay uga bixi kartoon afka hooyaan ma jiro marka waa dhigaynaa kaasi waxaa maxamed siyaad barre oo ka hadlayay qoritaanka afka soomaaliga in ay ku talagaleen ay sameeyaan haddaba golihii sare ee kacaanku waxa uu ku dhaqaaqay inuu fuliyo sidii af soomaaliga loo qori lahaa waxaa markaasi la sameeyey guddidii ugu horraysay waxaa ka mid ahaa guddigaasi loo xilsaaray arrintaasi oo tiradooda ahayd 21 cabdi daahir afey oo imika degan waddanka australia yuusuf garaad oo waraystay mar sanadkii aynu ka soo gudubnay dhammaadkiisii booqasho uu ku yimi magaalada london ayaa waxa uu weydiiyey bal inuu ka warramo si kooban taariikhda af soomaaliga ciddii isku dayday in ay qoraan qaar ka mid ah waxaanu ku jawaabay yuusufow anigu intaan ka ogahay ama raggii aanu soo wada shaqaynay far soomaalidu muddo dheer bay soo qaadatay in la qoro rag badan baa isku dayey ilaahay naxariistii ha siiyo raallina ha ka ahaado sheekh yuusuf kowneyn ayaa ugu horreeyey sida aan taariikhda ku maqlay ama ka sheeko qabo in af soomaali waxa la yidhaaho bal horta uu qoraal galo ama cod yeesho ama wax lagu qabto waa ninka soo saaray alif la kordhabay alif la hoos dhabay alif laa goday wuxuu isku dayay dadkii soomaalida ahaa si uu qur-aankii u xafadsiiyo oo ay higaadii u dhigaan u yeersadaan oo ay iyagu gacantooda qoraalkii marka loo yeeriyo qur-aanka ay iyagu gacantooda ku dhigaan waxaa ku xigay sida aan taariikhda ku hayo cismaan yuusuf keenadiid nin la yidhaaho reer hobyo ah ayaa isna fartan cismaaniyada la yidhaahdo soo saaray waa far soomaali xuruufteedu tahay oo shaqalladeedii iyo shibanayaasheediiba soomaali yihiin fartaasuu isna nin gabayaabuu ahaa waxaa ku kallifay isagana in uu gabayadiisii u samaysto wax uu meeluu ku xafito iyo qoraal uu ku xafido waxaa ku xigay oo raggii iyaguna qaybta weyn ka qaatay naxariista allaha siiye muuse galaal ninka la yidhaahdo iyo brofesor andrewiski ninkii ingiriiska ahaaye isna ahaa yaa kontomaadkii iyo ka hor baan u malaynayaa inay ahayd iyo iyaguna far latiina muuse wuxuuba igu yidhi marka hore carabi baan isku dayey inaan wax ku sameeyo se yeeshee markii isukay qabsan weyday ayaan u leexday xaggan fartan scriptiga ama xuruuftan ta'da ingiriisiga inaan wax ku sameeyo aniga ninkaasaa iska kaashanay inaanu xuruuf latiina aanu wax ku samayno waxaa iyaguna kusoo xigay halkaas ninka layidhaaho shiro jaamac
isna wuxuu ahaa nin fartaa latiinka ah wax ku qorqora oo raggii isna ku xigay buu ahaa. waxaa kaloo isna ku xigay brofesor ibraahim xaashi naxariista allaha siiye, ninkaasoo isaguna fartan carabiga ah oo wax ku qori jiray oo iqtiraax ah macnaha ra'yigeeda soo jeediyey in fartan carabiga la qaato. waa fartii qur-aanka, waa fartii diinta ku soconaysay. alifkeena iyo afkeenana halka aan ku dhiga buu doodiisu isagana ahayd. waxaa jiray nin la yidhaaho cabdullaahi insaaniye oo isna farta latiinka ah isna soo jeediyay iqtiraaxeeda in wax lagu qoro. waxaa isna jiray xuseen sheekh kadare nin la yidhaaho isna oo far alifba'deedu soomaali taho isagu uu iqtiraaxeeda iyo ra'yigeeda lahaa ayaa iyadana jiray. 8 farood ayaa tartankii markii guddiga laysu keenay farahay oo ahaa saldhigga waxyaalihii ay ka shaqaynayeen, farihii meesha lasoo dhigay saldhigga ahaaye laga doodaya tee la qaataa. 21 nin yaa marka hore yaa magacooda lasoo saaray. goorma? bishii koowaad kowdeedii 1971 bay ahayd. waqtigaasna la magacaabay. cabdi haddaan meesha ka dhex galo guddiga soomaaliga la sameeyey 71 dabcan dhowr jeeroo dambe ayaa guddigii wax laga bedelay, laakiin markaa u horreysay la magacaabay dadkii kugula jiray wax ma ka xasuutaa? haa, rag badan baan ka xusuusnahay. horta ninka la yidhaaho doctor shariif saalax maxamed, ninkaas wuxuu markaa guddigana la magacaabay guddoomiyihii jaamacaddu ahaa. isagaana nalooga dhigay guddoomiye. halkaas raggii maalinkaas ayaantaa la magacaabay waxaa ka mid ahaa yaasiin cusmaan keenadiid, muuse galaal, anigan cabdi daahira, maxamed shirin ina shiragaab la yidhaaho, maxamed shirin la yidhaaho, axmed cali abokor, awjaamac cumar ninka la yidhaahdo, cabdullaahi insaaniye, shire jaamac, brofesor ibraahim xaashi, xirsi magan, xuseen sheekh kadare. 21 intoodii kale maskaxdeeda hadda way ka maqan tahay, qoraalkiina ima horyaallo. tallaabooyinkii golaha sare ee kacaanku ay ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ahaa sidii ay u samaysan lahaayeen dad waxyaabaha ay wataan u hoggaansan. shaqaalihii sare ee dowladda iyo ardaydii jaamacadaha ka soo qalinjabisay iyo kuwii dugsiyada sare ka baxay ayaa iyagana lagu ururiyey xero milatarigu uu hore u lahaan jiray oo la yidhaa xalane, looguna magacdaray askari ku dhintay magaalada togwajaale dagaalkii ka dhacay sannadkii 1964 kaasoo dhex maray etoobiya iyo soomaaliya. askarigaasi xalane oo la dilay isaga oo badbaadinaya calanka soomaalida markii ciidamada etoobiya ay soo galeen magaalada togwajaale. ciidamadii NSS-ta ee sirdoonka gudaha ayaa iyagana la sameeyey oo ruux walba isha ku hayay. wixii dallacaad iyo casilaad ahna waxa ay ku fadhiyeen wixii wara ee ay hadba soo gudbiyaan. waxaa xoogaystay in ciddii wax ka sheegta dowladda milatariga ah iyo barnaamijkeeda lagu sifeeyo afmiishaar. waxaana taasi ay dhalisay ciddii hadal cadiba in dalka ay dabadda uga baxdo oo shaqo ay ka raadsato, taasoo iyaduna keentay in maskaxo aqoon badan lahaa oo dalka wax u tari lahaa ay waddanka dabaddiisa u baxeen. hase yeeshee culayska dadku uu dareemay waxaa ka horreeyey in golihii sare ee kacaanka lafahaantoodii ay iskhaarajiyeen. markii bishii julaay sannadkii 1972 laba jenaraal oo ka mid ahaa golaha sare ee kacaanka la dilay. waxa ay ahaayeen jenaraal maxamed caynaashe oo madaxweyne ku-xigeen ahaa iyo jenaraal salaad gabayre oo dad badan oo golaha sare ee kacaanka ku dhowaa ay sheegeen inuu ahaa nin qayb weyn ku lahaa in milatarigu talada dalka. hagaag dhegaystayaal, intaasna waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii saddexaad oo ka mid ah barnaamijyadii xidhiidhka ee aanu kaga hadlaynay taariikhda soomaalida.